بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيديو كانوا حوا فيديو رياكشن عن كسمينا فيديو يسوق لسمات فتحية عبسية channel كذا أغسطس 23 أو عوان أغسطس دكتي يا question mark قصل أنا جاياب أرجني قصل قضبات وررك تضبات كان قصل بلا عرقنا ما أنا قصل ما يدا قصل كذا وحي ولا يابت عرقتي بس أنا لا يابسن وحي أيضا صوت صارتي أيضا قف وين أو وحيوان وكلا لقى expect جرين إن ملا صفر يسوتو أي view كراديسو ما أصلا عرقنا هذا وحكو قلدن هاي نيشة كان معانا قبل لكن فتنا ذي وطي وحيابه يوتيوب كوفا فينا سو طعن المسلمين طعن العلماء دين تأي مل لو قد عاي وحيابه أجندة أي فافينا أن كسر جدا deeply أنا dedicated وحن قاسينا عن maalin walba xataa reaction aan kasoo sameey videoda ay soo sameysay in aan dabagalo aan ka istaagin ilaa ay dadka ay awareness ka qaataan ay fahmaan khatarta ay leedahay gabadhan Fatxiya Cabsiya khatarta ay leedahay ay dadku ku faafinayso different opinion hayse macquul ma le okay way laakiin waxyaabo oo unreliable ah waxyaabo oo been ah noo faafi si dad aan aqli lahayn oo kaleeto oo dan view ku raadso oo dulaysta saale waxay dhays balaas la aragnay in marba inay idinka dhex galo laakiin waxyaabo oo waxa way shameful way and disgusting inay waxyaabaan oo kale inta la soo fadhiisato as aragno ثلاثة ذكور وأربع إناث ستحويل أفق ما شاء الله السوداء وتطبع يقرأ استاذ قاسم لابو عبد الله صدق إبراهيم برعه تالا halkaas ku dhamaatay annaga ayaa aragnay carruurta sootii toddoba ahayd miyaanu meeshan garaynay toddoba ahaayeen oo lix khadiija ay dhashay radiyallahu ta'ala anha midna ay dhashay gabadhii Maariya ee Masriyada ahayd laakiin muxuu soo tiriyay saddexdii nin buu ka soo qaatay because gabdhuhu they don't come markii hore waxaan islahaa mala dad baa jarjaray laakiin ma jarjarin oo isagii baaba wuxuu sheegay Qaasim oo koowa Abdullah oo laba ah iyo Ibrahim oo saddexdaas uu sheegay dumarkii cidina ma soo hada qaadi marka waxa weeye cuqubada iyo xaq darradaas ay nimanka Soomaaliyeed maalin walba ku dhaqmayaan badankoodu ma wada aha laakiin badankoodu ku dhaqmayaan what kind of robot oo qabyaaladii oo qabiiladii ilaahay abuurtay dadkii ilaahay abuurtay qabiiladii nobody talked about qabiil oo kala durkiyeen oo kala findicilaan wow, this is what we're dealing with. This is what we're dealing with. Somebody like you. This is what we're dealing with. This is what we're dealing with. A grown-up woman. Adam abuuray. Deetana the perfect mate buu sameeyay how buu sameeyay. Anyway, taas waa taa. nin Soomaaliyeed waa nin Soomaaliyeed iga daayo waa iska xaabo dharkaas baan ka midnahay dharkaaga waad jeceshahay waxa weeyaan waad jeceshahay mid kasta inaad ku yara xaragooto waad iska jeceshahay yara xidhxidhato ayaamo laakiin waad ka maarantaa mid kale aad helaysaa waad ka maarantaa sharaf weyn iyo wax weyn maybe you have that trauma maybe you're being triggered maybe you're stuck in that you will be replaced maybe you're being replaced by your husband ex-husband kaada ku replace karay so you're still stuck on that trauma and you're here intano ado wili is heal garayna at trying to spread a message spread gaynosa maxaa keenay replaceable iyo dhara tahay iyo ma dhar ma laga hadlo right now dhar ma laga hadlooya maxaa keenay mentioning names or not mentioning names magac in la sheego musu magaci gabdhaha magacooda inuu ka taga xataa doo ka tagay lacala wacasa inay saas ku saameeysa ma ahayn hadaa la caqdad iyo wax kugu qufulsaneeneen oo adiga meel kale ka soconin
by mentioning what maxay ku soo zaadinaysaa maxay soo zaadinaysaa haddii gabdhaha la mention gareeyo iyo wiilasha la mention gareeyo subxaanallah yani waaba qof dhan oo videos sheekh dhan oo 17 minute 10 soo sameynaya sheekh dalxa cajaladiisa youtube-kay ku jirtaa 17 minute waa ciwaankeeda waa todobada ilmooda rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhalo waa ciwaan looga dhigay oo saaba sheegayba rasuulka todoboo dhalow dhahay 4 gabdhood iyo 3 wiil how come he's gonna mention saas oo saas u dhaha haddana ka tagaya gabdhaha common sense ee dal isticmaalaya qof dhan soo usoo qaadanaya title-kiisa oo muqadamadiisa oo u dhaha rasuulku wuxuu dhalay 4 gabdhood iyo 3 wiil oo dhalay oo haddana oo u manshigarayna only 3 oo inta kale ka taga macquul ma kula tahay yani common sense just like macquul kuma tahay muxuu hadduu rabo inuu ka hadlin oo magacyadooda soo qaadan wuxuu dhihi lahaa rasuulka wiilashiisa 3 wiil oo rasuulka dhalay maybe qof topic haday saas ahaan lahayd waa macquul aa dhihi lahayd oh aawi gabdhihiina lagama hadlin laakiin qof dhan oo sheekh dhan oo ka hadlaya oo title-kiisa iyo muqadamadiisaba oo dhahay rasuulka 7 ilmood oo dhalay ilmaha baro ilmaha nabiga maxamed calayhi salaatu wasalaam ilmihiisa magacyadooda baro waa ujeedaaba mawduuc laga hadlaya in ilmihii dhan la meesha garaynayo waa baqasab waaye because the whole topic covers that it's very obvious wax hadda question mark ku jira miya بعدين فيديوغا adiga kama soo qaadan meesha the video adiga soo gelisay the content creator ata you're a content creator you're a YouTuber qof hada naive ma atido aan ka seenin social media iyo videowada in la jajari karo videoga fiirsanaysa xataa meeqa jajara ku jira isla kan hada la soo geliyay noo shintay xataa kada jajara ku jira waa ujeedaa everybody oo YouTube soo wax soo geliya fahmayo ka saay qofka videoga qofka meeshiisa baan ka soo qaadatay waa maya meel kale iyo TikTok iyo meel kale ka soo qaadatay iyo channel kale whatever place so waa inaad isku hubsataa ma ahano qof dhan oo reliable oo intaas ummadda kugu xiran oo soo hor fadhiisanaysa maalin walbaa tahay ilen ay qof ma tihid are you gonna sit with lies mas waxaa la soo fadhiisanaysa unreliable stuff oo fake topic ka samaysanaysa wararka toddobaadka waxay noqotay fake news waxyaabo jirin iyo waxyaabo aan dhamaystirneen soo noo soo qaadanaysaa ka raadinaysaa problem inuu ku jiro oo mise yani wax dambi qof laga galay mise oo sheekha success yahay oo gabdhaha muslimiinta diintii tacininaysaa shuyuukhdii tacininaysaa طبعا سب المسلمين فسوق انه يا موكتب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سب المسلمين فسوق don't you know that مسلمين تو لعيمات nimankii caysay 90% 95% dulaysta dhahday the other day videoga soo dubtay naagaha waa qoyan dhahday 80% qoyan waay adiga iyo labada qof oo ku sacabtumay bas aqli leh wax fahmaya mujtamac Soomaaliyeed ka jiro maalin walba waxaan oo soo gelinaysaa video oo reliable ahayn iyo video oo qastiga loo isticmaalayo waa ismoogeysiinaysaa xaska dhigaysa qof aan wax fahansaneen oo kaleeto this is all view shaqada inta risqiga inta moo soo galay ina saan diinta bal wax kale ka sheekay mise wax kale ka hadal a lot of ways lacag laga sameyn karaa YouTube laakiin ina tacna sabul muslimiin isabul muslimiinta oo caysid maanta dhan iyo diinta oo si qalad dadku ugu fasirtid dadku u macmaynaysid daraadada waxaan ku dhahay sheekada noo soo baxday diinta shuyuukhda Soomaaliyeed dhan marab inaan dhageysano heblay shamsa something noo soo baxday naakshan sala dhahay oo quraaniya ay diinta waxay rabto la ka sheeganayso waxay rabto iska tartirayso videodaas waaraadii naagta shamsa ilaa hadda ma arkin qofkii shamsadaas la sheegay ka saay yaa igu soo taageeray please waa rabi la inaan ka hadlo mawduuceed idan fidna kaleeto oo muddo wax u faafinayso waay in dadkan oo kaleeto la iska hor istaago oo la iska celiyo oo dadka xaq loo sheego oo loo sacabtumin waa muhiim waay laakiin waxay aragtay maalin walba intay inta fadhiisato ayada ay noo qaqayliso loo sacabtumo la dhaho waa saxan tahay habow mase dulaysta saan le waay oo si fiican goosiyada tahay ظلمي هلاك جيسيدا تا قفك ودهاي هادو عذاب كامل على اوغاوده قفك waxa qaladka ku jirto ku sacabtumayo the dangerous thing why don't think like dad badan aan ku support gareynoy mus dad badan aan ku sacabtumayo ina xaq ku istaagantay ilaahay xaqahana waafajiyo laakiin walaalay xaq kuma taagnid waxa sheegaysid all the time asaa samaysa culimadeena ka hadasha wa tariiqa qalad qofaan waxba qaldin qof critical waxa hada qof sida caadi qof uga helaysa xataa waa la garan lahay maybe xataa ka transcribe laakiin ظلمي waa waxaan oo kale taa sameynay qof dhan oo adoo iska jagareyn kartid inta nala soo fariisatay hadda dawsa sameey maxuu kala bixi maxuu kala sheegay maxuu who said that in order u sheegay by order
ما أديك واحد أديك سميني ده سمين قلب وامية who said that what's so different هذا أديك مالك بوجين أو مالك حنون سنين if you don't have a pain أو ما أنت دين بيلش الشيء قبل الشيءين أديك حنون سنين وحبكم ما دي من المسج كحبوا مارك الهين لكن لما لا wax kugu taagan mise waxa rabtaa si dadka qaladka inaad dadka qalad wax u fasirtido dadkii meel kale ka tusido diintooda iyo culimada ay diinta ka qaadan lahaayeen ana axsiisido oo ka dhawga dhigtid sida dad oo sexist ah mise dad aan xaq sheegaynin oo baatil sheegayo diinta dadka nacsiinay maxay tahay naagta muslimada ah Soomaalida ah ee diinku nacaysid bay madiinta bay waxa adiga sheegaysid mise u maleynaysid in culimadeena diin dadka nacsiinaysid adiga taas ku dhacday adiga daa shaki kaaga jira diinta adiga haday ay culimada diinta ku nacsiiyeen according to what you're saying that's your own case laakiin dadka nasaas maaha ilaahay qalbigana noo thabit garay ala diinihi wa taa'atihi insha Allah laakiin waxa u arkaa wax ku talagal u sameynoosid oo laakiin viewgaas ka soo galay iyo Soomaalida oo ku sacabtumaysa aragtay laakiin no more dad badan ma sha Allah maanta comment ka bixinay oo ku dhahayn waa ku dhahay waa qaldanta waxa sameynaysid qalad waay soo fiirsa video soo dhamayso qof kasta ku galgareyn karo video marka hashid you can only google it to Sheikh Talha whatever hada gelisid ilmaha nabiga ala tuulu ku soo baxa do you want me to show you how to google you don't know how to google then why you're sitting here maalin walba noo soo fadhiisata noogu soo fadhiisata inta iska dhigtaa qof wax sheegayo oo mission iyo agenda wato haddaan reliable stuff soo sheegayn wax reliable aan sheegayn no lies iyo wax propaganda iyo wax lasoo si kale loo isticmaalo oo dadka aragti kale agenda kale lagu wataa noo sababta inaan noo soo gudbisid ma ogid miyaa culimada in uu lacay inay khatar tahay don't you know haddaa diin iyo akhlaaq ka siisid ma ku degdegi lahayn sheekh waxba kaa galin wax kaa haleynay inaad dhahdo dulaysti waay nimanka Soomaalida saarlay waay iyo maxaa ka galay nimanka Soomaalida iyo wixii dharaa tahay iyo adiga dii lagu soo bedelay oo dhar oo kala naqatay maybe if you have that adiga dii ninkaaga akaskaaga soo bedelay oo dhar oo kale of course dhar oo kala tahay maxaa banaad isku dhajinaysaa you need to heal your own trauma sister and stop spreading hate you need to heal your own trauma and stop spreading hate wrong messages in order to give views au heshid istaaji aniga waa ku daba dhigtay mana ka daba haraay adoona xaq ku soo laaban mise adoona istaajin waxa beenta meesha la soo fadhiisatay maalin walba noo sheegaysid shame on you waxa soo kale waxaanoo kale laga suganahay ma ahayn laakiin maalin walba waa ka soo daroosa every day worse than yesterday this is unacceptable بل أنتوا سي شيخ أو وحدة ما يسترعوا فيديو جيسي كامل ياهي سبحان الله اللهم ثبت قلبنا على دينك وطاعتك أيه النبي موسى النبي هارون لما النبي أهايان هدين النبي يوسف نبي يعقوب نبي يوسف يقول على النبي استبتشوغا سال الله دهن ويل أو النبي قد عليه بأنه عليه ما سالنا إنه النبي قبل بدي سوي سال أفرت أحد مدة كوباد وزينب وانا اكبر بناته قبله النبي قد علي صلى الله عليه وسلم قبل اوغوين يا قبي العاص ابن ربيع ما قبي قرمي لمتي سنة كسيديدات ايي لمتي توفيت سنة 8 هجرة النبي قبركي عليه الصلاة والسلام سنة كسيديدات ايي لمتي قبرنا سيدا انا قبرك حقا بكوريس فيديوغا waxaa oo dhameystiran waxaa ka helaysaa channelka daacadda production and I will link it hoostan soo gelinaa soo link kareyna ka fiirsada qofkii raba inuu fahmo oo fiirsada videoga dhan laakiin gabadha waxay maanta la soo fadhiisatay videogan Sheikh Talha waxba qalad sameeynin oo bilcaks dadka baraaya asbaa magacooyinka ilmaha nabiga calayhi salaatu wasalaamu calayhi you're an adult yes grown up woman aad tahay muslim sheeganayso laakiin diintaada iyo not everybody has access to the diinta soo bartay si fiican uma soo baran laakiin hadda adalta tahay hadda fursad haysa hadda adduunkan ku nooshahay hadda cala qayd alxayaa tahay bal ka faa'iidayso hadda diintaada baro fahan laakiin hadhihin diin waa hiwlaaya ii soo baxday iyo shamsa ii soo baxday sheekh shamsa ii soo baxday diinta noo sharxaysa iyo diinta qalada la ifaansiinay qalad maxaa lagu faansiinaa ma fahmine faham barto diinta markaas ka bacdi sheeg waxa saxa iyo waxa qaladka ah laakiin videowadana maalin walba aan soo dhiganaysid especially diinta طعن المسلمين iyo
دين تمرنا مسلمين تقطعين أساس سب المسلمين فسوق كما قال الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسوق واي أنا استاجي سكن استاجي وحيواس ذنبي واي قفكم حال الله أري إنه لا يفكي سكسو بحي أو خير أسوبتي سجنة وكجلا sometimes أري أفكي سكسو بحي ولا يب أو وملاين يعني أوف صفر أو وصل بحقفكم ويوهي بها الجن وقولي كرا محلي جري نارته والعياذ بالله أري أفكا كصوب حاجة إنه كوجين كر جهنم إنه نجي كوجين كر من آدم كاسانا وضعيف كأ إلهي هنوكر جارو أنينا هو دم ومربي لكن والله وحا إيجا حناجي لبعتها إلهها أنه أجيدا مسجد هذه هي سامينتا كإيمان كرتو especially قبلها ينسكو كلها أو هبو يا ساسلي ويدوليسي أنت لايق لقوسيناي أنت لقوس عبتوماي dad masaakiin u maleeyo inay culimada muslimiinta iyo culimada Soomaalida ay diinta ay si qalad u faafinayaan u maleeyo ee adiga ku maleeyaan the one that figured out discovered the truth ee adiga right now lighting ku sameeyo sidoo sharxo sida tariiqada sax ah ku follow gareynayo hadda adiga waxa fahansan tahay waxyaabaha soo gelisad saameynta ka imaada adaa dambigeeda qaadanaa mugtahay sax qalad every video asoo sameeyay waa inaan ka fikirtaa videogan aakhiradeeda negatively ma u saameynaa mase positively waay ma miisaanka xasanaadka oo ikora videogan maalinta qiyaama ilaahay agtiisa la tagaa mase miisaadka sayi'aadka oo ikora xujo ima noqon karaa inaa xisaabsantid walakin inaa maanta dhan qayli iska soo gelisid hadday saas noqoto iska qayli iska soo geli iska caay هذا عايتين تسكون بقبضة nobody else is gonna suffer from it except you توبي إلى الله إلهي يقول توب كان إلهي طريق المستقيم كهنا وارد هذا في الجيو ولا ليالو فافيه فيديو هدا إذا سو قالوا أنتي أو قبضة أو سومالي يوتيوب كجرتو أو أكتيف أو ربان إنه موضوع عن كهلان سامين تكبرنا أي كل هاتي المجتمع الصومالي هي خطرتك إيمان كنت بليس كهلا qofkii raba inuu ilagala hadlo oo discussion isla sameeyno oo xalqa isla tuubno am more than welcome ila soo xariir waxaa marka dhaha sheekh dulmadiid shalaka dulmadiid please ka hadal subjectadan ka hadal not only this to YouTube video kan lama maalin walba at least 2 or 1 video ay soo gelisa oo dulmi iyo message khalad ah ku jiro iyo caytin iyo sab iyo tafaaruq iyo hate in laga hadlo waa muhiim waay so that it doesn't impact other people when people become aware of if you're son wax qaladiin aniga ra'yigayga waa this is my opinion this is my sao aniga u arka waay dangerous u arka waxa arka waxyaabo oo false information spreading u arka waxyaabo xaq aan ahayn qof wax fahansan oo wax qaladna faafinaya inaysan u arka qof wax fahansan oo ugu talagal wax qalad u faafinaya maybe because of views maybe because of couple dollars YouTube laga sameeyo or hundreds or whatever lacag laga sameeyo taajir ku noqosan hada asleedahay waxaan aakhiradaada ku weynaysaa ka toobkeena ku ilaa اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه لا إله إلا أنت والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر